warninkani ninkaa dabadi miyaanu sanad kala sii noolayn buu nabigu yidhi. waxay idhahdeen ha sanad kalu sii noolaa, oo miyaanu ramadaan soo gaadhin oo haddana soomin buu nabigu ku yidhi. waxay idhahdeen ha ramadaan buu soo gaadho wuu soomay, oo miyaanu waxaasoo salaada sanadkaa tukanayno masaajidkayga ku tukanaynin. haa baa la yidhi. wuxuu uhi famaa baynahumaa abcadu mima bayna asamaa'i walard. labada nin waxaa u dhexeeya cirka iyo dhulka in leeg baa udhaxaysa. yani nabigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam, xadiidku saxiix sunan ibnu maaja iyo saxiixu tacliiq labadaba oo ku yaala. waxau nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam, ramadaan haddaad soo gaadho shuhadada ila dhaafi karta haddaad sidii la rabay uga faaidaysato. xadiiskani macnihiisu saasuu tilmaamaya. ninkii hore shahiidoobay, ninkii sanad ka dambeeye tukaday ee dabeetana ramadaantii soomay, waxa uu xadiidka nabigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam inuu dhaafi karo. walidalik ramadaan waa meel qofka muslimka ah inuu dhab ugu diyaargaroobaa. maxaad u diyaargaroobaysaa? gaar ahaan laba qadiyadood baabaynu ka warrami doonaa. kow, nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa waa meelaha ugu weyne dembiga la yskaga reebo. man saama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi. xadiisku wuxuu leeyay ninka ramadaan sooma laakiin iimaanan waxtisaaban, labada shardaa ku xidhan. rumaysan rabbigii iyo waxa alla u yaboohay, xisaabsanaya oo ilaahay daraaddii u soomaya, kaasi dembigiisii hore o dhan waa la dhaafaa. wuxuu kaloo nabigu haddana sheegay mar kale, man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi. ninka habeenada ramadaan taagnaada. dadka ramadaantu inagu laziness baynu ka qaadnaaba, dad caajisa oo hurdo badan oo la ydhaha wuu sooman yahayo naftuba kasii baxayso. halkay saxaabadu ahaayeen ramadaan dad xidhxidhan oo u xidhxidhan sidii ay u cibaadaysan lahayeen ama maximum ay u gaadhsiin lahayeen cibaadadooda. walidalik baa dagaaladii nebigu galay uguba waaweynaa ramadaan buu galay. beder iyo fatxu maka iyo yani dagaalada xataa taariikhda islaamiga ee dambe, caynu jaaluud, dagaalada caanka ku qaar badan oo ka midi waxaabay dhaceen waqti ramadaana. may ahayn dad cagsi la seexda. idan cidda habeenkii taagnaata buu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam iimaana waxtisaaban, isla dembigiisa hore waa la dhaafaa. haddana mar saddexaad buu nabigu wuxuu leeyahy waman qaama laylata alqadri iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi. xadiidku saxiixeynkii ku yaalla. saddex shay buu nabigu wada sheegay oo saddexdaba dembigaagii hore lagu dhaafayo bishan ramadaan haddaad samayso. sidaa awgeed waxaan leenahay ramadaan haddaba waa fursa aada u qaaliya. qofka mu'minka ah laba wax buu ka fakeraa, oo ramadaan uu aakhiradiisa laba wax buu xoog ugu xisaabtamaa. mid waa in ilaahay dembiga ka maydho oo uu naar ka badbaadan. hadii dembiga lagaa maydho naar baad ka nabad gashay. midina waa jannada maqaam sare si aad uga hesho, xasanaadkaaga iyo darajaadkaagu inay kordhaan oo jannada aad meel fiican ka hesho. ramadaanna labadaaba waa ku caan. labadaas shayba ramadaan waa masaa-ilka ee caanka ku tay. sidaa ogeed qofka muslimka ah ramadaan waa inuu tijaara raabixa ilaahay la tijaaraystaa. dadka baaci mushtarka ahi waxaa jira seasons wax waliba uu diyaar garoobo. mathalan ciidda dadku dhar cusub iyo waxbay gataan. ninka taajirka ahi wuxuu isku dayayaa ciidda dayn usii diyaar garoobo oo dharka maximumka u gadi karo inuu gado, waayo waa wakti furso ah oo aan la mid ahayn maxay waktiga kaloo dhan. haddaba ramadaan waa wakti qofka muslimkaa furso u ah laba shayba inuu helo. inuu dembi iska maydhi karo. inagoo muddo aada u badan soo dambaabayni, iyadoo taa nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo malakul jibriilba ina xasuusinayaan, ayuu nabigu mimbarka fuulay. dabeetana markuu jarajaro fuulaba aamiin buu yidhaahdaa, aamiin aamiin. waxay dhaha ilaahay rasuulkiisiyo kumaanan arag adigoo sidan yeela. maxaa aamiintani maanta maxay ahayd?
وحنا بقول رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له. رغم أنف عبد من الضم سكيها عيدوه أما سكلا هذا لو سمرت العاف هولا أفك هولا عوية قفك رمضان نص هوجا شيء دم بيجيس الله نافري كاسي أفك هولا عبود بقولي أيو جبريل يري أنا آمين بانري وحكلا جبريل يري بيري أفك هولا كأكتاد الوقوس وقاديك وسلي وياه اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلي عليه قفك أكتاد الوقوس هذا إيه كوسلي وياه كاسنا أفك هولا عبود جبريل يري رغم أنف عبدي أنا آمين بانري ونبوري متصدحات النبي أيو جبريل يري ninka labadiisa waalid ama midkood soo gaara ee janno geli waaya kaasina afka u dhaca nabigu alayhi salaatu ayuu jibriil yiri nabiguna alayhi salaatu wasalaam aamin buu yiri xadiidka kan oo sunanka iyo qeyrkoodba soo saaray waxa uu tilmaamaya oo jibriil leeyahay ninka intay ramadaan u soo gasho haddana dambigiisa la dhaafi waayo afka ha u dhaco nabi maxamedna aamin buu leeyahay alayhi salaatu wasalaam معناه هو محل رمضان وين إنه أدي يقرونا دم بيجي هرسيده إنه استجمع لله ده كبر بار رمضان وسيدي يقروبا دم بعصب سوق هذه الحياة مسلسلات الرماع عصبية يعني رمضان تلفت دي ببروجكت كي ما حكوش ربلان كي سبا إنه دبابه هلكو قفك مسلم كهاي بيش تروح الحين لا تي في يو وخذوا خلاص أنتم ما لسكدقوا وحودي يرجعوا يا بيشة محويا سان دم بيجوا هراء سجمايلا ولذلك بقى النبي عليه الصلاة والسلام حديث الصحيح مسلم ورني يروح المام يا رمضان توين يتعي موصل لتكفير الذنوب إن يتعي وقت دم بيجوا هراء سجمايلا تبتنا النبي عليه الصلاة والسلام صلاتها شنطة هي جمعة إلا جمعة هي رمضان إلا رمضان ومكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وقوة دم بقلبهم ما يرى هدي لقفوا هذا ذنوب تواوي يعني صلاة شنطة قلت الذنوب تنوي بدلت همك قوة طب أنت بدون حيل هذا كبائر ما ينقلين ذنوب تكبائر عصر قلنا بكبائر تنوى بدلت وحن إيو ربا إيو وحن لابد عارف إنه ترى بدل بدل كيانا ومن الكبائر كبائر توين هو بدل وحق كلام بدل وحق يستعمل ساكا مركات توسطي إلى عاو مركات سيحن دونتو أفكي يدك توي كشغيل ينين تخير هيد ساكا مركي واجو كوبري إلى عاو مركات سيحن دونتو لابد مدون بدل إن هذا دو هدلي شيء يمد هدلي ينا دقيسيني انت بدل ولا ولا بدون ضدك marka aad ugu hadlaysay xisaabiyo imisa khayr buuga khayrka aad uu ku qormaya imisa saladay baa say buuga shaka ka galay wixii aad degaysatay imisa khayr haabad u malaynaysa imisa sharaha ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay kitaabkiisu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha mid yar iyo mid weyn toona inaan ilaahay kitaabkiisu ka tagayn wax walba malagin uu qoray hadaba bisha tani haddaad koob iyo 10 bilood sidaa ku waday bisha qofka muslimka wuxuu u diyaar garoobay inuu dambiga iska maydho kafaaraadku hadaba waa kafaara yawmiya iyo kafaara usbuuciya iyo kafaara ramadaana sanawiya saaka markaad salaadii subax tukatay in baa lagaa maydhay duhurka markaad tukato in baa lagaa maydhaya asar markaad tukato in baa lagaa maydhaya maqrib markaad tukato in baa lagaa maydhaya ninkii gabadha dhunkaday ee dabeetana nebiga u yimi warka uu sheegay uu nabigu calayhi salaatu wasalaam la hadina salaada la tukaday ee haddana uu ku soo celiyey nabigu wuxuu kuri warna salaada lala tukaday haabuu ku yidhi ina alxasanaati yudhibna sayi'aat baa lagu yidhi war xasanadu أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات حسنات السيئات تكسيسا لكن هو قربة حلقة يا بنات هذا وهذه كوي ما أنت لغو ما يري جمعة محل ما يري يا مرة إلا لا عشان سويتو كريس
jimcaha maxaa laga maydhi waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo haddii jimcihii baa lagu maydhay ramadaanku markaa maxay maydhi doontaa? su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan acmaashu aynu samaynaa inta la aqbalo ama inta buuxisa wixii loogu talagalay ayaa dembiga maydha, inta kale ma maydho. mana si kale idinku tilmaamo. xadiiskii Camaar uu warinayay nabiga calayhi salaatu wasalaam, xadiis xasana nabiga waxa laga warinaya wuxuu nabigu yihi nin baa ina arajula la yansarif wama kutiba lahu ilaa cushru salaati. nin baa salaad tukada oo salaada ka baxa buu nabigu yihi iyadaan loo qorin salaadiisii cushur mooyaane 10%. oo waa maxay? mid baa salaad tukada baa la yidhi oo loo qoraa maxay 1/9, mid baa loo qoraa 1/8, mid baa loo qoraa 1/7, mid baa loo qoraa wuu soo waday 1/2 ilaa uu soo gaarsiiyey mid baa half loo qoraa. oo saasi waa maxay? yani waxa weeyaan salaadaynu tukanayna imisaad soo jeeda, imisaad ilaahay la hadlaysa, imisaad sa maqnayduun oo ka nalabnalabsiinaysa. inteena badan magaaladaynu maraynaa, wax kalaynu xisaabeynaa, wax kalaynu wadnaa un dee imaamku baynu iska daba soconnaa, allahu akbartaynu ku wadnaa. laakiin nabigu wuxuu leeyahy alayhi salaatu wasalaam mid baa intuu salaad tukado 10% loo qorayaa, 10% leh. idan waxay u badan tahay xadiiska Abu Daawud iyo Nasaa'i ibn Hibbaan iyo qayrkood baa wariyeen, waana xadiis xujo gaala say culamadu tilmaamayaan. haddiiba salaadeenu ay caynkaa tahay waxay u muuqataa inaynu u baahanay salaadaheeni shanta ahaa waxay tirtirayaan inay noqonayaan maxay? shantiiba marka la isku daro inaad 20% isku helin baa laga yaabaa. haddii jimcaha la gaadho iyana waa la mid. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man iqtasala yowma aljumca walabisa min axsani hiyaabi wamasa min tibin in kana cindah ثم أتى الجمعة فلم يتخطى عناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا أخرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. حديث أبو داود الصحيح عن أبي وحول ذلك الصبح الجمعة سوق بيسته نركي سقوه وفي عن سواقاته أدك nadiifa oo xalaala wuxuu ismarin karaa isa soo mariya ee jumcada yimaada ee aan dadka ka dhulka laabsanin ee wixii alla u qoray tukada ee aamusa ilaahay imaamku ka imanayo oo salaada ka baxayo, salaadiisaasi waxay u tahay kafaaratun, ayay u tahay wixii jumcadan ilaa jumcadii hore dhexdooda ka dhacay. يعني حديث كان النبي وحده المامية كجور هراي ما داينو لمدي يقف صدقة داشتي بحي نيف جيلة ككحيجة نيف لقى ككحيجة نيف أريا ككحيجة نيف دجاج حبة دجاجة ككحيجة مرباضة ككحيجة ملاك تبغى كلا بطابة اللي بوقت مركها وحماشة كموضة أعماش إلهي وحقرا كله إنما يتقبل الله من المتقين. إلهي وحا عملك كأقبلا كوا لك عبصدا. معنى هيدو حويان عمل كستا انت الله كعبسية كتشرتو بقى الله كأقبلا ولا غير بين الدنبيلة هي لكن صلاة تنسي خلاص كتشرا دو تكتي تاسبا الله كأقبلا. إذن أعماش أي الصمينين مرك الله يقول بحسب الزمان، marka loo eego bixasab almakan, marka loo eego bixasab alshakhs, marka loo eego mada ma fi qalbika min khayr wa kal khayr badanta inuu wax qura sabay. مثال ahaan axaadiis badan baa waxay ku soo aroortay ahlu naarka qaar ka midi muwaxidiinta qaar ka midi inay naarta galayaan oo lagu soo daahir yeelayo. su'aal ma xadiis aljahannamiyin oo dhan saasay sheegayaan. حديث كان صار طيب النبي وشيء نين يسوي مالته قيامها أنتوا يمادو مرك الله يدعم ما دلوقتي سلا شيء الله يدعم حصلت الله يسطع وحبش شيء كرواية
masal odhanaya mid baan lagu hayaa bataaqa la keenaya bu xadiidku sheegaya ay ku qoran tahay maxay tawxiidkiisii dabeetana taasaa la saaraya wax oo dhan way ka cuslaanaysaa baa layihi oo haddaa kuwa kale tawxiidsadayso kuwii naarta gelayay macnaheedu waxayaan tawxiidka ninkan uu la yimid acmaali lquluubka la socday ee ikhlaas leh ee xubbi leh ayaa ka weyn saa daraaddeed inagoo isku camal wada samaynayna inaan isku ajar helaynin camalku muuqaalka isagoo isu eg oo salaad wadayey ama tawxiid wadayey ama sadaqa u wadayey ayuu haddana marka la eego sadaqaadka muxuu nabigu yihi dirham baa 100 kun oo dirham maxay ka dheereeya waa 1 dirham iyo 100 kun waxa ay isku dhaafeen oo kala jira acmaashu waxay ku kala xoog bataan waqtiga la sameeyey waxay ku kala xoog bataan meesha lagu sameeyey مثلا camalka maka lagu qabtay ama salaada lagu tukaday maka dee 100 kun oo salaadood halka ku tukataa bay u dhigataa salaada madiina lagu tukaday 1000 salaadood halka ku tukatay bay u dhigataa makaankaas baa ilaahay subxaanahu wa tacaala salaada baytulmaqdis lagu tukaday 500 haddana waxaa kaloo jira waqtiga zamanka ramadaan markaa waxay ka mid tahay zamanka acmaashu fadliga dheeraadka ay leedahay haddaba waxaynu leenahay ramadaan waa waqti dunuubta la dhaafo waxaynu u baahanay inaynu u diyaar garowno markaa sidii dembigeenna loo dhaafi lahaa ramadaan way soo socotaa soon qura un inaynu afka xidhanno maaha waxaynu u soconnaa waa inaynu soonno waa inaynu qiyaamu leyl samayno waa inaynu sadaqaad samayno acmaal tira badanoo soo aroortaynu samaynayna laakiin danta aynu ka leyna koowaad waxay tahay inaynu ku talagalno bishaa dembiga inaynu iska maydhno manqabada labaad acmaasheenii haddii ay soo kala yaryaraatana hadday salaadii wada masixi kari waayaan ta jimcaha hadday wada masixi kari weydo waa inay ramadaan aynu ka dhignaa inay maxay intii inugu hadhay inay masixi karto manqabada labaad haddii dembigaaga la dhaafo dee naar ka badbaaday ahlu jannaad noqonaysa waad saa ku dhimato jannada lafteedu dee isku boosas maaha markaa qofka muslimka ahay jannada lafteeda dee firdows ilaclaa nin galaya iyo nin xeebteeda galaya meel suke ka galaya isku boos maaha nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii xadiidu lqudsiga ahaa ilaahay baa wuxuu yihi kullu camal ibnu aadama lah ila siyaam reer nebi aadam camalkiisa oo dhan isagaa leh soonka mooyaane fainahu lii waana ajza bih waana ajzi bih soonka anigaa iskaloo ka abaalmarinaya soonku buu nabigu yihi waa junna waa gaashaan buu wax badan ka yihi dunuub buu ka yihi macsi buu ka yihi naar buu ka yihi wax badan buu gaashaan ka yihi faida kaana yowmu sawmi axadikum haddii maalintiinii miduu soomanyay la gaadho falaa yarfat yowmaidin walaa yaskhab maalinta yuu caytamin oo yuu afxumo sheegin oo yuu buuqin fain saabahu axadun haddii lagu maago lagu caayo aw qaatala ama lagula diriro falyaqul inii mriun saa'im ha yidhaahda war anigu waan soomanay waladii nafsu muxamadin biyadi nafta muxamed allahay gacantiisa ku jirtaan ku dhaarteen lakhuluufu famu saa'imi atyabu cinda allahi yowma alqiyaama soonka qofka afkiisa wixii kasoo baxayay aakhiro marka la tago hadda ma aha aakhiro marka la tago sidaa nusuusta lagu jamciyo kastoo ay tahay masalo culamo badan ay ku kala ra'yiin oo masaladay ibnu salaax iyo alcizi ibnu cabdisalaam isku radinayeen rasaa'ilka ka qoreen calaa kullin ku dheh waa sidii tii dhiiggii shahiidka oo kale dhiig waa dhiig dahabka marka la joogo laakiin aakhire waxaa la yidhi wuxuu ka udgoon yahay maxay miski midabku waa midab dhiig laakiin waa saa miski kana waa sidii oo kale aakhire marka la tago yowma alqiyaama wixii qofka muslimka afkiisa kasoo baxaya wuxuu noqonayaa maxay atyabu cinda allahi yowma alqiyaama min riix ilmisk walisaa'ili farxataan yafraxuhuma ninka soomaalay laba goolo u farxuu leeyahy markuu afurana wuu farxaa rabbigii markuu la kulmana wuu farxaa xadiidkan waxaynu uga soconaa qeybtiisa koowaad nabigu wuxuu leeyahay ilaahay baa yihi subxaanahu wa tacaala ibni aadam camal oo dhan isagaa leh soon mooyaane see loo fasirayaa camal oo dhan isagaa leh soon mooyaane
يعني آراء ترى بدن بي علماء الشيخ لكن وحاول اللو إلى هذا لبدا قول أولي سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة شيخ الإمام الشافعي حدث كيوينا أيها لما قول بولي لما تسقول لما يباسي صح قولوا حوارنا يا صوم كمويا وحكرا أردن مقاصدي قلال يعني آخره فقالوا كيانو وحي ذنوب أدقى شيء دي أعماش هذه صالحة هذا لو قوينيا كم وضع عليه كم وضع عليه كم وضع ضبطي دي أعماش هذه صالحة هذا لو قوينيا وحقوق فصيلة يا مركا صوبه ما شفت مسألة ده لكن إمام القرطبي رحمة الله عليه بقول عليه حديث كي مفلسكو صوب لو قدر يقول مركا أنا رأيي قاسيلة محب الله حديث كي مفلسكو وكشيء يصوم كابي صدقة هذه صلاة هذه وحاجة وبجرا لكن حديث رواية إمام مسلم كلا شيء يسوع ما رواية لك ولا حديث كامل يقصى رين يعني إمام النسائي بسند صحيح وقصة صاري وحويا إن أعماش كرورنا وحلا يقال حدود لغو أبا المريو الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. نقول حكوت الإمام عليه الصلاة والسلام قرآن كان حديث كقصة أرورتي إن حسنة لا ذهي محي من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها في سورة الأنعام مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لبدا أيضا ضحك المامية حسنة طبعا ومينيمم مرة حسنة بالبقو قريب طبعا قوية إن البقو طبعا هو محي هدي لا هو يمسي 100% طبعا مرة هو يمسي 1000% يعني حسنة كستوات سميسو إلهي 1000% بقو سينيا هذا نوع حسن دنوبتين وخبضان إسا وحال يلي هدنا حسنات كقاركود وتضبط بقلبي قاريا وحال هو أبال مرينيا تضبط بقل إلى 700 ضعف. لكن روايات حديث كاسي بخارينا وكمن يردورنا يوحلي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزى به. صومكم مركا وحي كبحسنت الحدود ده وحي كبحسنت الحدود ده محي مقاييس تنترد إلى ينوشي غيرنا مقياس كذا إلهي أمبا يقانا ولذلك بين مفسرين تقاركوت كفسران إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إلهي هو الصبر أجر كودا وحلصين يا محي بغير حساب. تا معنى هيدو حوية قفك مسلم كاه وحوصو ميا صوم كينا إنو ديالقرو قيلو وينو نقضى كوبات إنو الدنب يسكبينو marka waa inaad ramadaan iska ilaalisaa dunuub kale inaad la timaado waa inaad ku dadaashaa waxa laaliya wixii ku soo arooray ramadaan tee la yiri dambiga lagu maydhaa hadday tahay soonkeedii waad dhowrato ilaashatid hadday tahay qiyaamkeedii waanad ka caajisid hadday tahay maxay laylatul qadr iyo baxtigeedii waad u dadaasho kuwaas markaynu u dadaalo وغفر له ما تقدم من ذنبه أما مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. كاللبات أين الراضعين وحويان إن الدرجات كسرية جنة هلك المهدي دنبي نبلا ناف وأجر أنت وغبضنا إنه شقي سكرنا إنه شقي سنة وأحسن كنا إنه إلالنا حين كإلالنا وح الله لي وحي دلولنا يسوق أفهمها دلولين يسا عيبة دلولين هي دم دلول وحلالي وحيدا وحن كيسني الصوم كذا هنا كان وقته هذا واحد لنا هي بشهر رمضان قفك مسلم كاهي النظر ما هو حوين ودي القربة النظر بابا الاسكير هي بشن ميساك على الاسكير ما ونقيض ضعيف كهذا الدلاء هيدا دان قفك بني آدم كاه ونقيض يصير ضعيف حتى وحيلين أورام تقاركي برافض بني آدم كسر بحقاركي مركي بلو ويهين رمضان تويت الشبيهي وايو وحلالي وحي ونق ضعيف ورمضان الطبيعي هذا ونقيع عصب أياه دفاع على شركة حوغي سنة الماضية
idan cunada waynu iska yareynaa. nebiguna waaba kii yidhi de weel ka shar badan caloosha lama buuxiyo. marka bisha tani bil cuneed maaha, waa bil cunada inta la fudaydin kara la fudaydiyo. laakiin maxaynu u diyaargaroobeynaa? waa bil aynu u diyaargaroobayno kow inaynu dembiga iska muhino, laba inaynu ajarka ugu badan samayn karno. acmaal ramadaanta ku soo aroorto ku badan oo nebigu si gaara usii tilmaamanay oo aan soonka ahaynna waa jiraan. oo ay ka mid tahay salaatuleilka, oo ay ka mid tahay daraasat lqur'aan. hadda qira'at lqur'aan lama odhan, waa daraasat lqur'aan, qur-aanka in la daraaseeyo. waayo jibriil xadiidku wuxuu sheegayaa markuu bishaa u yimaado nebiga iyo jibriil qur-aankay daraaseyn jireen bisha tan. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu qur-aanka la daraaseyn jiray bisha tan. idan qiraa'o qur-aan u samee, fadli baad ka helaysaa bikulli xarfin. dee xurufta laysu tirinaya. walidalik ayaa culamadu markay fasirayaan xadiidkii sheegayay 3 maalmood ka iyo qur-aanka laguma akriyo, waxay leeyihiin waa xisbigaaga yowmigaa marka loo jeedo. laakiin mawaasimta waa laga badsan karaa bay yidhahdaan. mawaasimta waa laga badsan karaa bay sheegaan. walidalik baa imaam shaafici waxaa laga sheegaa 6 jeer buu dhamayn jiray bay yidhahdaan. bisha ramadaan maalintiina markuu dhamayn jiray habeenkiina ma. macnaheedu waxa weeyaan 6 goor buu imaamu shaafici bisha ramadaan uu qur-aanka dhamayn jiray. culamada markaa waxay idhahdaan, ama imaamu nawowi suu soo naqlinaya wuxuu leeyahay waa tadaayinkaa kan la diidayay oo dee noloshii kaleo dhan ba istaagaysa haddaad tidhahdo qur-aan umaan akrinaya. laakiin furaska ama ha noqoto 10 maalmood ee 10 dilxaj ama ramadaan, meelaha furaska ee waktiyada qaaliga ah intaad akrii karta waa la akriyaa bay dhahay. laakiin waxaa kasii fiican bay culamadu yidhahdaan inaad daraasayso, qur-aanka fahamtid oo inaga dhaadhaco aynu si fiican u garano. kow qur-aanka daraasadiisa. waxyaabuu bisha nebi maxamed caanka ku ahaa ee labaad waxaa ka mid a sadaqada. kaana ajwad annaas wa ajwad maa yakuun baa layidhi. nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka uu deeq badnaa, ajwad bilkhayri kulli. wax walba juudadu gacanta qura maa, hadalka fiican, diin sheega, kaana ajwad. dadka wuu waxbixin badnaa. oo dee waxbixintiisa marka la sifeynayo ramadaanta ka kaalaya waktiyada kale waa ka la yidhi weligii nebi maxamed wax la weydiiyey maya ma odhan. adiga wax lagu weydiiyo xataa haddaanad maya odhan, dadka imisaa kuusoo qasdiya adiga? imise qofbaa dadka kuusoo beega? waxaad qiyaastaa haddii ummadda madaxweynaheedu iska dhex socdo oo masaajidda kula tukanayo oo salaad walba taagan yahay, dadka imisaa kuwii u geli lahaa baad u malaynaysaa? madaxweynehi hadduu salaad kasta joogo oo aan askar ilaaleysaa jirin oo cid kaa celinaysaa jirin oo waxba toona jirin ood wakti walba heli karto. nabi maxamed madaxweyne mayna rasuul buu ahaa calayhi salaatu wasalaam, waa koreeya madaxweyne. haddana mu ahayn nin meel ku xidhan oo dadka laga celiyo ama aanay dadka sarkeen ama zaahido buragaleen oo meel xitaa joogeen. waxaa qofkaa nolosha dadka o dhan kala qeybgelaya, suuqay wax ku iibinayaan, soo maraya, wacdinaya, xabaalaha raacaya, masaajidka 5 salaadood tukanaya, noloshooda o dhan ka qayb qaadanaya, dadkao dhan bay la joogaan. qofka caynkaasi haddii lagu yidhaahdo weligii wax la weydiiyey maya ma odhan, siduu kuula ekaanaya marka? weligii wax la weydiiyey nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maya ma odhan. haddana waxaa xadiidku sii sheegaya marka isagoo dhaqankiisu ka ahaa haddii ramadaan la gaadho ajwad maa yakuun wuxuu ahaa maxay? fii ramadaan baa layidhi ka riixi lmursala bay riwaayaadka qaarkood tilmaamaya. waxbixintiisu waxay u ekayd sida dabaysha babanaysa. idan qofka muslimka ah waktiyada khayrka uu ku jiro waa inuu u diyaargaroobaa inuu wuxuu bixin karo. si awgeed baa la yidhi qofka qof sooman afuriya ajarkiisii oo kalu leeyahy. hal qof oo sooman haddaad afuriso maanta caalamulislaami imisaa gaajaysan baad u malaynaysa, imisaan helaynin wuxuu ku suxuurto, imisaa maantaba soomanaayo wuxuu afka geliyaan helaynin. cid fog ha eegin, tolka iyo qaraabada eeg. imisaa maanta dabad yaalla waxba haynin. idan qofkaad afurisaba ajarkiisii in leeg baa lagu qoriya. wuxuu maanta soomanaayo shaqaysta oo dhan in leeg ayaa lagu qoriya. walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam bishatan waktiga kale uu kasii maxay badnaa, kasii waxbixin badnaa. bishan waxyaabaha lagu dadaalo waxaa ka mid ah habeenka iyo salaadiisi, ama taraawiix ha noqoto, ama qiyaamu leyl ha noqoto,
wixii habeen iyo salaadiis ka mida. bisha tan waxyaabaa lagu dadaalo waxaa ka mida ducada, oo aayadda ducaduba dee waxay ku dhex jirtaa bay culammadu yidhaahdaan aayadka soomta, waidaa sa'alaka cibaadi cani waxay ku dhex taalla maxay aayadka soomta qeybna ka horeeya qeybna ka dambeeya. waxay culammadu yidhahdaan sirta ku jirta waxaa ka mida wallahu aclame inay bishani tahay bishii ducada. qofka muslimka ahi wakti uu badsado ilaahay baryadiisa, idan waa inaad isku daydaa bisha horteed wixii mawaanicda ducada ku ahaayo dhan inaad ka takhalusto, wixii ducada aan ugu aqbali jirin oo dhan inaad daafto si ducada lagaaga aqbalo. habeenka laylatulqadrigaba haddaan la kulmo bay caaisha tegi ilaahay rasuulkiisiyo maxaan idhahdaa ducun booba u sheegay nebigu. habeenka haddii ilaahay ku haleeshiiyo waxaad tidhaha allahuma inaka cafuwun tuxibu lcafwa facfu cani, ilaahayo waad cafwi badan tahay waanad jeceshay cafwige, ilaahu dembigayga dhaafnay. bisha tan waxyaabaha gaarkee uu nebigu sii tilmaamay waxaa ka mid a iyadoo bishu awalba ay bil cibaado ahayd ayaa qeyb ka mid ah adduunka laga tagaa, oo cibaadaadka bishan waxaa ku jira cibaadada loo yaqaana alictikaaf. nabigu calayhi salaatu wasalaam tobanka ugu dambeeya siiba u ictikaafi jiray. ictikaafku waa maxay? waa noloshii mubaax iyo xalaasha ahayd xataa inaad faraha ka soo qaadid oo aada u go-did uun nolol ku kooban oo qura inaad ilaahay la xaajooto bes. ictikaafku waa qofkii intuu masaajidka isku xidhay aan uga baxaynin xaajo aan lagama maarmayn inuu cuno soo cuna ama masquul gala mooyaane aan ka baxaynin masaajidka. wuxuu qabtaana ay tahay dadka barbaa intay soo xaradaan haddana sheeko wada, wuxuu qabtaana ay tahay inuu rabbigii uu la xidhiidho waxyaabihii xalaasha ku ahaa, bale waxyaabihii ajarka laga helayay. matala nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay ninku hadduu gabadhiisa u galmoodo in ajar looga qorayo sa xaaraanta looga qorayo, laakiin tobankan waxaa la yidhi walaa tubaashiruhuna wa antum caakifuuna fi lmasaajid. idan wixii xataa mubaax ahaa wax allaaliya wixii xalaal xataa ha ahaato bishan waa bil inta la yska xidhxidho loo xidhxidho markaasi inaad bel ilaahay gaar isku noqotaa, rabbigaa baryadiisa iyo cibaadadiisa iyo dembi dhaaf weydiisadkiisa inaad gaar ku noqoto oo makhluuqaadka o dhan intaad ka tagto aada ilaahay ugu odo. bisha tan acmaasha uu nabigu xoogga u tilmaamay waxaa ka mid a cumrada la cumraysto bisha tani tacdilu xija buu nabigu tilmaamay, xaj bay udhigantaa. riwaayaadka qaarkoodna xajatun maci, xaj aniga layla soo xajay, xaj aad nabi maxamed ku wataan sheekh soomaaliyeed ku wadin ayay udhigantaa buu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. haddaba waxaan leenahay darskaygu wuxuu ku kooban yahi ilahay wuxuu leey waan tasuumuu khayru lakum aa waan tasuumuu khayru lakum. waxaana laynoo sheegay ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun. waxaaba laydinku waajib yaalay idinka iyo ku idinka horreeyba soon loogu waajib yaalay inay gaadhaan mansilatu taqwa. mansilatu taqwana waxay culamadu yidhaha waa gaayat lgaayaat, waayo cibaadadaba meeshay u socota weeyaan. ya ayuha annaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waladiina min qablikum lacalakum tattaquun baa ilaha yidhi. wardadow rabbigiin caabuda, rabbigii idinka idan abuuriya ku idinka horreeyeyba lacalakum tattaquun. idan bishatan isticdaadka ramadaan aynu samaynayna waa inuu noqdaa inaynu ku talagalno mansilatu taqwa saynu u gaari lahayn. mansilatu taqwa sidaynu u gaari lahayn waa inaynu ku dayannaa, waa inaynu u diyaar garownaa. waxalaaliya wixii adduun ku saabsan waa inaynu iska fudaydinaa intaynu fudaydin karno. waxalaaliya wixii ku saabsiisan aakhiro, alimaanu billahi wa bilyawmi alaakhir iyo cibaado iyo alla kacabsiga waa inaynu maximize garaynaa. waa biluu qofka muslimkii training qaato, iraadadiisu train gareeya on his own will, doonistaada inaad nafta xakamayn karto xukumi kartid ayaa lagu bartaa. waa bil uu qofku zaad u qaato 11 bilood oo soo socda. ilaa nimanka waxaa kaa maqan kuwii waaweynaya shayaadiinta ah, laakiin markaan ciidaba la soo daayo jidkay ku weydaarinayaan. laakiin haddaad zaad fiican sidato muddo waad is xakamayn kartaa ama waad iska celin kartaa. marka waxaan ereyga kusoo koobaya waxa weeyaan
labada qadiyadooda ugu weyn ee aynu u baahanay inuu diyaargarowna waa saynu dembi isaga maydhi lahayn iyo ajar inta ugu badan la saynuu xoogsan lahayn. sala allahu calaa maxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam, walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin. ilaahay subxaana wa tacaala ha ka abaalmariyo sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun kelimada quruxda badan ee dhinacyo badan naga tusaaleeyey. ilaahayna haynaga yeelo subxaana wa tacaala kuwii wax ku qaata waxa loo sheegayo ee ka faa-ideysta bishan barakaysan ee aynagu soo foolnay. marka waxaan u furaynaa insha allah ilaa intay inaga gaadhsiiso 10:15 su-aalaha. marka inagoo ku dhaqsanayna kusoo dhawaada. ha daahiro su-aashaadi kusoo dhawow. ha bisha ramadaan. ha iyadoo kolleyba cibaado ah ha meeshii xashku kaaga waajibi lahaa haddaad ku tagto iyadu kuu noqonayso. su-aashu waxa weeyaan si ay dad kale aynu u dhageystaan insha allah. daahir wuxuu yidhi maadaam bishan soonkeeda bishan cimradeeda fadligii sheekhu inoo sheegay uu kusoo arooray, qofka haddii uu tago bishan oo u cimraysto ma ka gudaysaa xajkii? sideedaba sunne faral ma guda may tanina waa sunne, xajkuna waa waajib. marka waajibaadku ku dhici maayaan mahmaa la yidhahdo uu ajar badan tahay ama ajar baa laga helaya ama uu nabigu tilmaamayo fadliga xajka oo kale wax ku dhow baad helaysaa, ma gudayso. wallahu aclam. jazaaka allahu khayr. su-aasha labaad. ha adeerlex. soomka dadkeenu sidii ictiqaadan waxa weeye in cuntada biyaha laga soomo inta badan iska hasaabo iska dhaqanka caadiga iska socdaan. marka waxaan jeclaan lahaa inaad tawdiix yar noogu samaysay inuu qofku ay biyaha iska daa keliya inay soomku ay tahay inuu suluubkiisa dhan uu ku saleeyo siduu ajirkaas sheegay insha allah u gaartaa. su-aashu waxay tahay maadaama dhaqan aynu u lenahay haddaynu soomaali nahay inaynu cunada iyo cabitaanka aynu ka soonno, marka maxaad noogu nasteexaynaysaa weeyaan hadalkaan kusoo dhawaadeen. nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa wuxuu ku tilmaamayaa inaad raashinkiina iyo cabistiina iska daystaan. ilaahay baahu ma qabo haddaydan qowl zuur iyo waxa xun haddaydan ka tegayn. waataynu nidee dembi kale in la kororsado ramadaan maaha. ramadaan waxaynu u qaabilnay inaynu dembigii hore sidaynu u maydhi lahaynu samayno. qofka muslimka ee bisha ramadaan soo gashay dabcan cunada iyo cabista waa ka tegaya, laakiin dunuub oo dhanna waynu ka tagaa. waanu isku dayaa qofkaasi inuu dembigii hore iska maydho uu ku talagalaa, laakiin dembi cusub inuu bilowdo waynaynu ku talagelin. ramadaan waa inay noqotaa, waxay yidhahdaan waa meel qofka bini aadamkaa takyiirku harku ka bilaabo. waa meel qofku rabo inuu isbedel sameeyo. sidii aad u noolaan jirtay waa inaad u noolaanay, wax kastaba ha ahaato. sidii aad u noolaan jirtay wixii caade ugu weynaayaynu samayn jirna waxaa 3 goor aynu maalintii wax cunno, tii baa laynaga bedelay. waxaa laynaga bedelay inaynu waxaynu caadaysanoo dhan bedeli karno. 2-3 casho hore waad gaajada dareemi, waktiyadeed wax cuni jirtay markay gaadhaan enzymisku calosha way kusoo daada, laakiin marka dambe waad la qabsanaysaa. marka dambe waktiga afurka iyo cishada iyo meelahaas unbaad gaajada dareemaysaa. inta ka horeysa calooshaada waxba dareemayso. noloshoo dhan waa sidaa. qofka bini aadamkaah waa waxa uu isbaro. sidaa aada u bedeshay cunada waktigaad cunaysay waa inaad u bedeli kartaa noloshaada oo dhan. siiba waa inaad de wixii dembiya aada ka kaxaysaa oo isku daydaa. nabiguna calayhi salaatu wasalaam dee xadiis saxiix oo bukhaari iyo keyrkiiba warinayaan oo caam ugu tilmaamaya inaan ilaahay baahi u qabin
inaynu sharaabkeena iyo cunadeena iska dayno inagoo weli la imanayna maxay qawlu zuur iyo dunuubti iyo wixii kale inagoo wadno wallahu aclam. haye su-aasha saddexaad ha siyaad. asalaamu calaykum. calaykum asalaam. sheekho waa mahadsantahay horta waxaad yaro moodaa in ay shuruudana noo sheegi jireen waagi hore diinta hala gaarsiiyo gaalada oo diinta hala yeelasaa oo diinta horsaa, laakiin hadda waxaad moodaaba in gaaladii ay kasoo tagtay carruurteena ay meel walba dayacadda ay tideshay oo meeshii aan hadda gaalada aan xooga saari lahayn inay u baahan tahay inaan carruurteena u sheegno maxaa qoran lahaa sooma oo waxaan iska daayo oo meela iska daayo sababtoo luuq walba hadda aad aadid waxaad ku arkaysaa carruurteeda teenage oo walba arkaysaa. annagana mas-uuliyad badan isma saarno oo kii wadaadka ahaa kii professorka ahaa kii dhalinyaradaha waa ag maraynaa innagoo ujeedno mataqaana in carruurteena meeshaas in xataa kelmad yar oranayo mataqaana oo oranayo maxaa qora ilaahay ka cabsado adag waxaan iska daa maafka iska daana ma jiro. marka maxay tahay waajibaadkana saaran ama maxaa nooga iman karaa oo dhibo mataqaana ama maxaa dardaarma noola dardaarmi kartaa arrintaas? bismillah. maanka saliimka abaa sheegaya waxaad haysato inaanad raadin adoo wax kala raadinaya. soomaalida waxay dhahaa midho gunta ku jira midho geed saaran looma tuuro. almuxaafada calaa diini lmuslim ayaa ka owleysan kaafirka loo yeeday. qofka muslimkaa in diintiisa la ilaaliyo waa waajib dhammaanteena saaran. waa jirta dee bad baynu soo gallay weliba aynu xoog iyo xoolaba ku bixinay si aynu u iman lahay, laakiin waxaynu u baahannahay si aynu uga dabaalan lahayn haddaba inaynu xoog iyo xoolaba ku bixino. waxay u muuqataa milanku inuu hadda inagu sii socdo oo dadku uu sii milmayo oo wacdigu sii yaraanayo ama base inta dhegaysanaysa ay sii yaraanayso oo waxa laga yaabaa ageku xataa waxyaabahan u arkaya inay diinta ilaalin lahayn waxaa kamid a inay carruurta af soomaaliga bartaan. waayo afkooda may diinka ka dhargayaan. xoogaa ingiriisiga laga tabartabarsiiyo diin lagu baran maayo. idan waxaa rasmiga ahi wuxuu ahaa luqada soomaaliya ama luq oo dhan. luqada waxaa cultureka umade ay leedahay thaqaafood diin dhaqan waa waxa siya. dadku markay luqadooda lumiyaan dadkiin suxoodo dhan way lumiyaan. waxyaabaha soomaaligu aanu moodinba inuu cilmi iyo wax yahay waxaa kamid afkiisi. af ingiriisiga inuu cilmi moodo. af ingiriisku kama fiicna af soomaaliga laakiin waynu lumin. walidalik ba waxay yaraadayba inaga iyo kuwaynu dhalay xidhiirka inaga dhexaynayaba maadaama aynu xataa luminay wixii aynu kula hadli lahayn waxay yaraaday waxay naga dhexaynaya. marka inaynu ilaalino dhalinyaradeena waa ka muhiimsan tahay cidda kale u yeerhkeeda. kan in marka hore diinta lagu sugo dadka kalena markaa loo yeedho laba. haye su-aasha afaraad. تفضل تفضل الله يهر يا حاجة سقعتها لقيتها ايه سجر هذا ها هل عمل ده كفر هذا كنا نقول هل عمل هذا كفر هذا يقول عشان نقول قاري كلام قل آمنت بالله ثم استقم. إلهي ما رمى يدك توصله. ما شاء الله. هاي قرأت سؤال شهادة. مسلم ودقن كنا نكون مشرو. دين كنا نكون مشرو. Soomaalidu way heesi jirtay, way gabi jirtay, way buraanburi jirtay, laakiin muslim way tuman jirin. gaalkaynu la yimi wixii koowaadee la tumtuma bigil buu ahaan jiray, hindi yar baa inoo garaaci jiray. kadibna niman cadan inaga yimi baa inoola yimi cuud iyagoo si tutumaya. isku soo dar
haddaad dhaqan soomaaliyeed ka warramaysana kuma jiro. dhaqanka soomaaligu wuu leeyahay adab, literature buu leeyahay, gabay buu leeyahay, hees buu leeyahay, buraabur buu leeyahay. literature-kuna af walba wuu ku jiraa. literature-kana kiisa fiicanina waa fiicanya, kiisa xubina waa xun yahay. idan haddaad adugu ujeedo kaba maarmo literatureka siisa u akri, siisa u dhegeyso. amaa muusig iyo galamgalamta tani waa wado shaydaan. labada su-aalood baynu ku khatimayna ilahay idinki subxaana wa tacaala ilaa khayr idinka siiyo. waxaan qabaa sonkor, waxaan ahay calaa kulli xaal gabadha waxa sokor baan qabaa, dhaktarkiina wuxuu igu yiri ma soomi kartid, dawadana 3 jeer qaato, markaa sidee bu soonka igu noqonaya? sokortu de waa xanuunada dheer ee ilaa hadda dadku la nool yahay. dadkana isku si uma hayso. dad sonkor qaba oo soomaa jira, bale ku caafimaada. maalidooda waxaan akrinayay dad sonkor qabo dhakhaatiir ay u qorayso inay soomaan iyadoo soo baahan. laakiin cagsiguna waa jiraa. dad sokortooda xad ay gaadhsiisantay waan soomi karayn. idan qadiyadu hadday qadiyad caafimaad tahay waa laba miduun, inaad adigu tijaabisay oo markaad is aragtay aada arkaysa inaad soomi karayn, ama dabiib muslim oo aad ku kalsoon tahay inuu ku idhaahdo ma soomi karaysid oo xaaladaadu waa xaalad aan qaadi karayn. haddii markaa labada miduun ay dhacdo, ama adigu hadday tajribadaadibu ku aragtay ila marid baatay inaad soomi karaynin, ama uu dakhtar muslim oo diintiisa ku kalsoontay uu ku yidhaahdo ma soomi kartid, soomi maysid. markaa waxaa kuu banaan inaad afurto. xanuunku hadduu yahay xanuun laga bogsanayo, markaad bogsataa waad qallaynaysaa. laakiin soomkii sokortii ilaa hadda waxaa laga bogsado ma aragno. haddii ay jirto sokortu mar ay kugu kacdo iyo maraad roonaanayso, oo laga yaabo hadhow Decemberta marka la gaadho ee maalmuhu yaraadaan ee la soomi karayo, haddii ay saa tahay waad soomaysaa. maalmo udhigmaad soomaysaa, maalmahana waad afuraysaa. matalan waxaa laga yaabaa Decembertii oo kale 10 saacadood inay noqoto, adiguna awooddaadu inay gaari karto 10 saacadood inaad soomi kartid, markaa waad qallaynaysaa. haddii ayse tahay hoolda yar xanuunkan inuu ku haynayo, jidhkaaguna marnaba aanu awoodin inaad soomto, ama tajribo ku hela ama dhakhtar muslim ah kuu yidhaahdeen, markaa video baa lagu leeyay, videaad iska bixinaysa. wallahu aclam. ilaahi subxaana wa tacaala ka abaalmariyo. shaafic tafadal. بسم الله وبه نستعين على امور الشيخ شردقة إن دكتور مسلم وقعديو حنون كاغا ما دام إنه وكلا إنه دول كان وده قفوا ما عنده ودكتور هاي تقف سكاي تاني بو خدونا بو هاي قال مسلم سكتيران قال خلاص قال سكتيران قال يعني عد والبا أي لين مكان الشرط بقى إنه حنون كاغا عديو اختار مسلم. يعني waxaan muslimka loo tilmaamaya waxa weeyaan de qofka kale isagu soonto ma arko wax necessary oo ma arko. yani halka ay adiga ka taagan tahay kama taagna. saadaradeed 10% ifakta hadday kugu leedahay isagu wuxuu arkayna waa in adiga laga yaabo inay wax weyn kula ahayn in kiilo ka dhaco ama waxaan ka dhacay Ramadan kaaga mugsan. laakiin asalku waxa weeyaan dee aad qof bini aadam aad istajribeyn karaysa. haddaad istajribeyso aad arkaysa inaad soomi karaynin waan uu dhacayo. masalan sookii baad xidhatay, markay 12 ahayd baad aragtay inay kaa dhacayso, tikniikaagaad soo jebinaysaa. asalku kuma ahayn inaad sii wadeen. haddaad hayn karayso aad tahay qof soomi karayn waad soomaysaa. haddaad dhakhtar muslim oo waxa kula garanayaad helaysana helaysa markaan leeyahay dee konton gb ba magaalada jire waxaa ka wahsanaysaa inaad mid private u tagto 20 pounds ka bixiso
من مسلم برايفت مياه مسهل كريم شغل لا تقبل بين كوين وحبار اختارون جيبي بلاش كان او تختار على كل حال نكي دون ايام نختار مسلم هلا او دينتي سنه كلسني ومالين ما ينكواي لندن يعني نختار مسلم وحويدي هدي ادو ابلا هي انا بديت تجربه يسوقنا دي خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها والله اعلم su-aasha ugu dambaysa waxayna dumarka waxay tiri bisha shacbaan 15-keeda ma waxaa la kala xukumaa acmaasha كل حديث صار ورئيس حديث علماء يقوم مرتو شيء يعني هبين كاسي واحد إرادة ليه هاي قف كستوى مسلم توحيد سدي إن الهيدا بيجي سنافا إلا يكون شحنا قوم الحياة يا مشركون ثم لو دم بدافين قف كمشركة يلا والله شحنا قوم الحياة لو دم بدافين حديث صار وترجستا والله أعلم شحnaa waa maxay شحنا قوى واسرفك dadka iska laalaada ama calol xumada ama cadaawada tan Soomaalidu tan isku dhigsanto kale weeyaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka abaalmariyo sheekha umada kale inala tukada 3 minute baa hadhay 3 minute insha Allah la sunnaysto jazaakumullahu khayran ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka abaalmariyo sheekha miisaanka xisaaskana ugu daro maanta marka uu la taagay xasana kasta loo baahan yahay inana intaas samirteen ayaa fadhideen Allah idinka abaalmariyo jazaakumullahu khayran وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين بريتو يان لإلاوي إن شاء الله صلاة المغرب إلى يعشاها دحدودا يا شيخ مصطفى حاج اسماعيل السبت لنا إن شاء الله واحد شراء ميتين والدينتا أرنتن وسياكا دواتشي إن شاء الله وضح الله مركا لن يردنا نضيعا مركا يذكر رالي إن شاء الله إيانا على قصة قيب الوالدين ويعني كمان نقصد لما أنت جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله